الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كل وناكسن داوديال كسر دواء برنامج كأني حقي حقيقة qaybtan waxaan ku eegi doonaa dhanka Ethiopia ayaan aadi doonaa wararkii ugu dambeeyay ayaynu eegi doonaa gobolka Oromia sida aad la socotaan bay kacdoonada inta ugu badan Ethiopia ay ka dhacayaan waxa ku nool oo Oromada ku dhaxnoola bulshooyin kale oo kamid ah qowmiyadaha Ethiopia bulshooyinkaasi ayaa la sheegayaa in cadaadis aad u fara badan uu ku haysto deegaanada Oromada arrimahaasi ayaynu eegi doonaa iyo guud ahaanba wararkii ugu dambeeyay Ethiopia barreelka casi ayaa ila jooga taariikhdu waa 22 bisha luulyo sanada 2020 kusoo dhawaada barnaamijka ilka casow maxaa dambeeyay Ethiopia marow aad ma santa horta qoqotooyinkii gudaha Ethiopia ka jiray wali waa sidii marka laga reebo qowmiyadda Oromada oo iyadoo ahayd qowmiyadii kacdoonka waday waxba hadda ka daran ba qowmiyadii kale qowmiyadda Oromada ku dhaxnoolaa ee deegaanada Oromia ku nool hadda cabasho ah oo waxa weeye tan iyo inta hadda kacdoonku uu bilowday kan ogeyn ururka QEERO mar ay soo saareen shaqo joojin in aan la furi karin xarumaha ganacsiga dawladuna ay tiri qofkii furi waaya ganaac ba waxa weeye la saaraya lacag buu bixinaya halka QEERO ay dhaheen haddaad furtaan gabi ahaanba meesha waan burburinayna gabi ahaanba marka dawladda yar dhaanto waxa weeye waan gubaynaa dawladda yar dhaanto iyadoo waxa weeye waxaad bixini ganaax waad bixini waadna furi waadna waad xiri go'aanka QEERO baad waxa weeye u hogaansami dawladda marka dad furi weyd ayaa ganaax yar u saaraysa ganaaxaas marka aad bixinaysa marka qowmiyadda Oromada markii laga tago qowmiyada kale oo ka soo jeeda deegaanada kale ee Ethiopia yaa ku nool oo ganacsiyo far badan ku leh deegaanada Oromia dadkii marka xarumihii ganacsiga ee ay lahaayeen waxa la yiri ma furi kartaan hadaad furtaana waa la gubi gabi ahaanba waa la burburinaya deegaanka miina u dhalanin anaga fursad ay siinay si aad halkan ugu noolaataan oo ugu ganacsataan waxa weeye hadii aad amarkanaga u hoggaansan weeyaan deegaankanaga ku nooshiin waxa weeye dhulkan waxa weeye ganacsigana waa idinka gubaynaa dhulkan waxa weeye waa ka tagaysaan tan iyo markii go'aankaas marka QEERO ay soo saareen dawladuna waxa weeye dhinac kale ay talaabooyin qaaday ay ku xakameeyeen arrimahaasi dadkii waxa weeye qowmiyadaha kala ahaa cabsi aad u balaaran ba soo food saartay waxay gudaha u galeen xarumihii ciidamada oo ay waxa weeye nabadgeliyo waxa weeye ay ka raadsadeen dad fara badan marka oo qowmiyadaha kala ayaa xarumihii ciidamada dawladda ama laamihii amniga ku xarooday si waxa weeye naftooda ay u badbaadiyaan maal isaga ma jiro warkii kuwa marka qaar dawladda dibadjin u sameysay waxa weeye meela dawladda ay ku ilaalisay amnigooda yaa la geeyay inta marka laga soo tago marka meelaha ugu badan hadda waxa weeye dadka hadda bulshadooyinka kala ka soo jeedan Oromada ahayn ee ku nool bariga Hararge sida hadda magaalooyinka Haramaya Awaday Kombolcha Qolqo Charso iyo kuwa kala badan bulshadaas marka waxa hadda wararkooda soo tabisay warbaahinta amxaarada madaxa banaan yaa soo tabiyay iyagoo ku hadlaya luqadda amxaariga marka su'aal la weydiiyay waxay ahaayeen maxaad ka cabanaysaan maxaa yaa idin maartay dhibaataynaya oo idin hanjabaya oo aad ka cararaysaan oo naftiina khalkhal gelinaya kooxda onaag shanne oo aan sheegnay mar in ay dawladda Ethiopia ku eedeysay dilka fanaankii yaa waxay sheegeen warqado ay astaantooda ku qoran tahay yay ku daadiyaan bal xarumahooda ganacsiga qowmiyadaha kale iyo meelaha ay ku nool yihiin waxayna maartay leeyihiin goobaha ganacsiga waa in aad xidhaan haddaad xiri weydaan oo waxa weeye aad furtaan goobahana waan gubaynaa kuma noolaanaysaan meesha sidoo kale warqadaha waxa ku qoran baa la yiri haddii aan la soo deynin jawaar magaaladan lagu noolaan maayo magaaladan waxa kamid ah magaalada waxa weeye marka deegaanada Oromada la fiiriyo ay qowmiyadaha ugu badan ee deegaanada kale Ethiopia ka soo jeeda ay ku nool yihiin halkaas marka dadkii hadda xaalkooda uu yahay kacdoonkii qowmiyadda Oromada iyada waa sidii dal iyo dawladba wali u socda ra'iisul Ethiopia iyo xukuumaddiisana wali ma aysan u helin xal kama dambaysaha oo cabashada qowmiyadda Oromada lagu xalinayo haddii qowmiyadda Oromada cabashada la soo afjaro oo xal laga gaaro oo xukuumadda Abiy uu hogaamiyay qowmiyadda Oromada ay heshiis rasmi ah gaaraan qowmiyadaha kale ku dhax nool qowmiyadda Oromada nabad bay iskaga noolaan lahaayeen laakiin khilaafka Abiy iyo qowmiyadda Oromada u dhaxaysa yaa keenaya hadda qowmiyadihii kale in waxa way dhibaatooyin loo geysto xiriirka ciidanka inay galaan ay qaxootin noqdaan hantidoodii la burburiyo nolol aad iyo aad ciriir u ah ay ku noolaadaan حتى waxaa ku adag
in uu qofku waxa weeye qowmiyada kale in uu intuu iska baxo noloshiisa la carro u aado waxa weeye halkii qowmiyadiisii uu ku nooleed iyo deegaanka ku soo jeedo waayo wuu cabsanaya dhaxda in loo golo ka yaabay maadaama meesha uu ku nool yahay tahay qowmiyadii Oromada deegaanadeedii inta markaan uga soo tagno hadda dir dhabo kala shalay kulan baa ka dhacay looga hadlayay amniga kulankaas wuxuu u dhaxeeyay mas'uuliyiin kala socotay hararida Soomaalida iyo maartay Oromada kulankan marka dhanka Soomaalida waxa matalay hogaanka cadaaladda iyo nabadgelyada Qaasim dhinacan hararida madaxweynaha hararida hogaaminayay wafdiga dhankan Oromada hogaanka nabadgelyada deegaanka Oromiya yaa hogaaminay kulankan intiisa badan wixii looga hadlay wuxuu ahaa sidii la isaga kaashan lahaa ee loo sugi lahaa amniga deegaanada xuduudaha ee ay wadaagaan saddexdan dawlad deegaan marka si wanaagsan buu ku qabsoomay si wanaagsan buuna ku soo gabagaboobay waxayna isku raaceen in si wada jir ah amniga deegaanada xuduudaha loo ilaaliyo maadaama cabsi weyn laga qabo dhankan deegaanka Soomaalida ay qowmiyadda Oromada xuduudda kala leedahay oo kacdoonkan ay cabsi ka qabaan in uu saameyn ku yeesho ay wado qowmiyadda Oromada xaaladdu marka halkaas ay hada ay taagan tahay wali ma jiro xal kama dambaysa oo laga gaaray Abiy Ahmed dal iyo dawladba xaaladdu way ku ciirtay waxaadna moodaa hadda marka aad fiiriso sansaantiisa in uu aad u soo jilcayo oo xataa dibadda waxyaabo badan oo markii hore salaanta khilaafki Masar iyo Suudaan kala dhaxay biyo xireen kale inuu hadda ka soo tanaasulay oo u aqbalay soo jeedintii bangiga adduunka iyo IMF iyo Mareykanka oo iyagu dhaqaale badan ku bixin jiray dhinaca kale dawladda federaalka ee Abiy uu horkacay wasaaraha ka yahay laamaha ammaanka waxay sheegeen in ay sii wadi doonaan ilaalinta sareynta sharciga iyo maartay in gacanta lagu dhigo oo la xakameeyo warbaahinta shacabka isku kicinaysa waxaan ognahay TV in la xiray markii kacdoonku uu bilowday oo barihii bulshadan inuu soo jiray internet uu jiray tusaale ahaan TV-yada la xiray waa hadda mid Tigreega iyo midkan hadda Oromia Media Network ee OMN oo iyagu ahaa labadii TV kamid ah TV-yada la xiray kamid ah ee lagu eedeeyay in ay kicin bulsho iyo mid diimeedba ay wadeen TV-yadaas maadaama dawladdu ay hawada ka saartay qaab satellite ah iyo hadda hawada ugu jiraan walina shaqooda way wataan dawladda marka talaa ku ciirtay TV-yadii ay xirtay oo wali sidoodii iyo waliba si ka daran wax u wada shaqadii u wada oo waliba shaqadoodii la bajibaaray si Abiy iyo xukuumaddiisa ay ugu xumeeyaan wax kasta oo ay doonayaan oo gudaha ka jira ama dibadda ka jira oo dibadbaxyada la wada ah in ay soo bandhigaan hawsha marka aad ugu xumaatay caalamka iyo warbaahinta caalamkana waxay arkeen wararkan la soo tabinay TV-dan ay tabinayaan iyo xaaladda gudaha Itoobiya ka jirta cabashadan qowmiyadaha kale Itoobiya ee dibadda ku nool ee Oromadu ugu horkacayso ay muujinayaan in warbaahinta laga soo tabinayo arrinta waadan u adkeysan waay marka waxay dhaheen oo dawladdii ay sheegtay in ay isku dayi doonto sidii ay u xakameyn lahayd TV-yadan labada ah ee Oromia Media Network iyo midkan Tigreega wax soo tabinaya sidii ay u xakameyn lahayd ee uga hortagi lahayd maadaama dawladdu ay ku eedeynayso iyaga inay wadaan kicin bulsho oo ay dadkii iska horkoonayso oo ay isku dirayso xaaladda marka halkaas ay maraysa dawladdu wali waxay wadaa hawlgallada ay ku baacsanayso cid kasta markaas ay isleedahay qalaasana way ka faa'iideysanaysaa ama way kicinaysaa oo xukuumadda Abiy wasaaruhu wuxuu yiri waxa weeye dawladdu ay ku dadaalaysaa sidii aan gacanta ugu soo dhigi lahayn dadka iyagu ka ganacsanaya dhiiga shucuubta dalka Itoobiya ee iska horkeenaya shacabka wali marka waxay wadaa tii ugu dambeysay hawlgalladii waxay ahayd guriga waxa weeye ninkii Siyu Misfin wasiirka arrimaha dibadda marna soo ahaa safiirkii China u fadhiyay Itoobiya qofkii laga helay waxa weeye kuwii ugu dambeeyay wali marka hawlgalladii way socdaan meelaha ay ugu socdaan ugu badan ee ka socdaan waxa kamid ah hadda caasimadda Itoobiya Addis Ababa iyo maartay deegaanada Oromia oo ah meesha ubuucda ama udub dhaxaadka u aha ama salka maartay u aha kacdoonka socday waartay uu sababay waxa weeye fanaankii la dilay qowmiyadda Oromada maadaama marka iyadoo markii hore wax tabanaysay ya haddana fanaankii la dilay baasiin baa wixii uu waxa weeye ku sii horiyay xaaladdu way sii kacday wali marka ma jiro waxa weeye wax heshiis ah iyo wax maartay wada hadal ah waanta mar walba way jirtaa laakiin waan aan mira dhalaynin oo aan heshiis lagu gaarin weeyaan xaalku halkaas uu maraya Abiy marka dhanka dibadda oo shalay sheegnay in culays weyn laga saaray waxa moodaa xogaa inuu soo dabcay oo inta badan Mareykanka iyo World Bankiga iyo IMF ta lacag ku bixin jiray ay ku cadaadiyeen in uu tanaasul la yimaado marka ay timaado
khilaafka dhanka hadda Masar kala dhaxeeya maadaama gudaha culays aad u balaaran isaga oo ka haysto oo aan ogeyn in madaxweynihii Tigreega uu hanjabayay oo laha doorashada xilligeeda ku dhici doonta cid hor istaagi karta iyo cid maaragtay noobaba dhigi karta midna ma jirto waxa la wixii isku daya in annaga ay waxa weeye hor istaagaana oo talaabooyinka aan qaadayno ay waxa weeye hor istaagaana afkaan ciid u dareena wuxuu kale uu yiri annagu waxaan ku mashquulsanahay daadihinta nidaamka dawliga iyo dadkii sida aan nidaam wixii maaragtay u baahin lahayn awoodii dawladda ee dadkii u gaarsiin lahayn dawladda federaalka waxay ku mashquulsan tahay in ay kicin iyo dhibaato gudaha ay ka samayso iyadoo waliba noo adeegsanaysa buu quwada shisheeyay sida hadda Eritrea oo kale iyo Suudaan oo taliyihii ciidanka difaaca dalka Eritrea uu gaaray oo iyadana ay waswaas ka qabaan Eritrea nimankan Tigreega in Abiy uu ku doonayo inuu u adeegsado Suudaan iyo Eritrea in awoodooda uu ku wiiqo oo uu kula dagaalamo xaalku markaas aad baa mahadsantahay ilkaas waa yahay daawadayaal bal halka aan ku joojino barnaamijkaasi kooban uu ilkaas kaga waramay xaaladihii ugu dambeeyay wadanka Ethiopia iyo gaar ahaan gobolka Oromia dhibaatooyinkaasi laga sheegay in qowmiyadihii kale ku dhaxnoolaa qowmiyada Oromada ay loo geysanaya gaar ahaan ay ku aadayeen koox lagu magacaabo